بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashirkeena shanaad oo taxanaha ahaa oo aan ka hadlayna maanta xanuunada ku dhaco qanjirka loo yaqaano thyroid-ka oo Ilaahay ku abuuray dhuunta. Thyroid gland waa qanjir hawshiisu ay tahay inuu soo daayo dheecaano hormones oo loo yaqaano T3 iyo T4 kaasoo jirka waxyaabo badan u tara. Waxyaabaha ay hormoonada jirka u taraan waxaa ka mid ah inay kontroolaan miisaanka qofka, heerkulka qofka, dhaqdhaqaaqa murqaha, garaaca wadnaha. Waxay kaloo la shaqeeyaan timaha iyo cidiyaha iyo maqaarka. Sidoo kale waxay hawl ay ka wada dhexeysaa qanjirada kale ee jirka ku jira. Qanjirka thyroid-ka cillado badan ku dhaco. Cilladaha ugu waaweyn waa inuu shaqada joojiyo oo hawlgabo kaasoo loo yaqaano hypothyroidism. Sidoo kale waxaa ku dhaco inuu aad u shaqeeyo oo si xawli ah u soo daayo dheecaanada kaasoo loo yaqaano hyperthyroidism. Sidoo kale waxaa ku dhaco burooyin ama wax kuus ah oo ka soo baxo. Waxaan ka hadli doonaa qaybteena koowaad maanta qanjirka thyroid-ka markuu hawlgabo xanuunkiisa oo ah kan ugu badan ee bulshadeena lagu arko khaasatan haweenka Soomaalida kaasoo keena astaamo badan oo ay ugu horeyso inuu qofku isku arko daal, murqo xanuun, caajis, neeftuur, qofka jaranjaro ma fuuli karo, socod dheer ma geli karo. Sidoo kale wuxuu isku arkaa calool fadhi. Sidoo kale qofka wuxuu isku arkaa qabowga oo dhibaayo, qabowga isu adkeysan karin, dhaxan ayuu dareemayaa qofka. Sidoo kale qofka wuxuu isku arkaa timaha uu ku daadanayo, hilmaan badan, kor qallayl, caajis badan. Dhulka hadaa fadhiisatid si sahal kuma toosi kartid ilaa inaa afarta adin ku istaagtid maahane. Sidoo kale haweenka wuxuu ka qaldaa caadada. Wuxuu kaloo keeni karaa inuu qofka madhaleys ka dhigo ama ilmaha uu ka soo rido haddii xanuunka muddo hayo aan lagu baraarugsaneyn oo aan daawo laga qaadan. Intaas waa iyadoo kooban waxyaabaha calaamadaha oo la isku arko markuu xanuunkan uu qofka uu hayo, laakiin astaamooyinka intaas way ka badan karaan. Xanuunkan marka maxaa keeno? Xanuunkan waxyaabo badan ayaa keeno, laakiin waxa ugu horeeya waxaa waaye difaaca jirka qofka bani'aadamka oo weeraro qanjirka kaasoo ka dhigaya hawlgab. Waa cillada ugu badan ee keento xanuunkan. Maadaama uu difaacu yahay wax la xiriiro xanuuno badan ayaa kusoo hoos dhuuman karo oo uu ka mid yahay sokorta. Dadka sokorta qaba khaasatan nooca type 1-ka ah xanuunkan thyroid-ka waa lagu arkaa. Dadka qaba xanuunka dheefshiidka caloosha ku dhacay celiac disease la yiraahdo isna xanuunkan waa lagu arkaa. Allergiyada qaarkood oo difaaca ka dhasho ayagana waa lagu arkaa xanuunkan. Marka waa xanuun oo autoimmune disease waxyaabaha la yiraahdo kusoo hoos gambado. Sidoo kale waxaa keeno haddii uu qofka ku yar yahay macdanta loo yaqaan iodine-ka oo laga sameeyo hormoonka thyroid-ka waana midka bulshadana aad ugu badan kaasoo ah in iodine-ka uu ku yar yahay dhulkeena waa sida cilmi baarayaasha ay sheegaan. Sidoo kale qanjirka inuu hawlgabo waxaa keeni karo infection ku dhacay. Infekshanada viruska uu keeno sida hergebyada noocyadooda, infekshanada ku dhaco sanqada, infekshanada ku dhaco cunaha iyo sanka ayagana waxay keenaan inuu qanjirkan uu hawlgabo kaasoo keeni kara xanuun loo yaqaano thyroiditis. Kaas si faahfaahsan ayaan waxaa uga hadli doonaa insha Allah cashirada soo socda. Xanuunkan marka sidee lagu ogaadaa inaad qabtid? Xanuunkan waxaa lagu ogaadaa in la baaro hormoonada kaasoo ka kooban 3 hormoon. Hormoonka loo yaqaan TSH oo ah hormoon laga soo daayo qanjir ku yaala maskaxda kaasoo hadafkiisu uu yahay inuu ka shaqeysiiyo qanjirka thyroid-ka iyo thyroid-ka laftirkiisa soo daynaya 2 hormoon oo loo kala yaqaan T3 iyo T4 oo ah kuwa haddii jirka ku yaraadaan dhibaatada ay ka dhalanayso. Sidoo kale haddii laga shakiyo dhuunta inay barar leedahay ama buro ay ku taalo ama kuus laga dareemo iyadana waxaa la saaraa ultrasound oo lagu ogaanayo. Haddii laga shakiyo in cillada qanjirkaaga ay keentay wax difaaca la xiriira oo ah inuu hawlgabiyay difaaca jirkaaga ayagana waxaa la qaadaa dhiigag oo la yiraahdo thyroid antibody test. Badanaa dadka kuma baraarugsano ahamiyadda ay leedahay baaritaankaas. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in baaritaanadan kale normal noqdaan laakiin kaas cillada laga arko. Midda xigta waxaa waaye haddii xanuunkan aan la daaweynin muxuu dhib keeni karaa? Xanuunkan maadaama uu la shaqeeyo xubno badan oo jirka ka mid ah ayaga ayaa saameyn ku imaan kartaa. Wadnaha kale inuu bararo isla laftirkiisa hawlgab inay ku dhacdo, in murqaha ay tacbaan noqdaan oo aad istaagi weysid oo noqoto sida qof curyaan oo kale, in ay hooyada u keeno madhaleysnimo u keeno. Haddii aan la daaweyn wuxuu kaloo keenaa in dhuunta bararto oo ay kuus yeelato kaasoo loo yaqaan goiter. Wuxuu kaloo keeni karaa in hooyada ay dhasho ilmo
oo aanan si fiican u korin maadaama hormoonkan muhiim u yahay korriimada uurjiifka. Waxaa kaloo xanuunkan uu keeni karaa haddii aan la daaweyn oo qofka muddo hayo inuu qofka komo galo, kaas oo loo yaqaano komada thyroidka ama myxedema coma. Sidoo kale xanuunkan maadaama uu la shaqeeyo neerfaha, wuxuu qofka isku arki karaa in gacmaha iyo lugaha ay mar walba ku yeesho kaboobyo joogto ah ama dareenku ku yaraado, waxaa loo yaqaano peripheral neuropathy. Isagana xanuunkan wuu keeni karaa. Xanuunkan daaweyntiisu way fududahay. Daaweyntiisu waxaa waaye kaliya hormoonkaas jirka ka maqan oo qofka daawo ahaan loo siiyo. Daawadaas uu joogto u qaadanayo subax walba intuusan quraaca ka hor, kaniini uu joogto u qaadanayo oo lagu saxayo shaqada qanjirka thyroidka. Xanuunkan waxaa laga aaminsan yahay fikrado badan oo qaldan. Fikradahaas waxaa ka mid ah rabo inaan halkan ka saxo inuu qofku uu yiraahdo maxaa waaye xanuunkan aan laga bogsanaynin oo daawada intaasoo bilooyin aan wado ama intaasoo sanooyin aan wado. Horta waa inaa ogaataa daawada wax lagu siiyo inuu xanuunka uu kaa taga maahan. Sidoo kale inuu qanjirka raysta maahan. Waxaa lagu siiyo waxaa waaye hormoonkii oo kaa maqan oo lagu bedelay oo lagaaga dhigay kaniini. Sidaa darteed jirka hormoonka maadaama uusan ka maarmi karin, sidaa darteedna kaniiniga kama maarmi karo. Fikradda kale oo qaldan waxaa waaye inuu qofka uu kula yimaado baaritaan. Baaritaankaas uu sheegayo sida caadiga ah markuu ciladan uu qofka qabo hormoonka TSH loo yaqaano high ah, oo qofku ku dhaho sidee aniga u qabaa thyroidka dhacsan oo low ah, baaritaankan uu sheegayo inuu high yahay. Taas waa su'aal oo muhiim waaye. Thyroidka stimulating hormone ama TSH hormoonka loo soo gaabiyo oo kacsan macnaheedu wuxuu ka tarjumayaa qanjirka maskaxda ku jira ayuu wuxuu aad u soo deynayaa hormoonkaas si uu thyroidkan howlgab uga shaqeysiiyo. Taas laftirkeeda waxay fasiraysaa inuu thyroidka uu low yahay oo shaqayn la'yahay. Maahan macnaheedu inuu hormoonkaas laga soo daayo qanjirka thyroidka. Midda kale oo iyadana qaldan ee qofka aaminsan yahay waxaa waaye in hooyooyinka markay uur yeeshaan oo kale ay ku dhahaan daawada ma joojiyaa uur yeeshay. Daawada thyroidka oo dhacsan loo qaato waa muhiim inaadan joojin. Waliba waxaa dhici karto marka uur yeelatid baahida u qabtid daawadaas inay sii laba jibaaranto oo ay dhici karto daawada in la kordhiyo maadaama muhiim u yahay cunugaaga inuu koro oo si dabiici u koro. Midda ugu dambeyso iyadana fikradda qaldan keeni karto waxaa waaye inuu qofka ku yiraahdo thyroid ma qabo, see u qabi kara thyroid, dhuunteeda waa kaas ujeedaa barar ma lahan, kuus ma lahan. Marka waa muhiim inuu qofku ogaado qasab ma ahan inaad dhuunta aad barar ku leedahay ama kuus aad ku leedahay haddii thyroidkaaga howlgab yahay. Mararka qaar way dhici kartaa, mararka ugu badanna dhuuntaada waxaa laga yaabaa inay dabiici tahay barar aysan lahayn, laakiin xanuunka ku haya laga arkay xagga dhiigga ah. Halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad oo ahayd dhacsanaanta ama howlgabka qanjirka thyroidka. Cashirkeena xiga insha Allah waxaan ka hadli doonaa kacsanaanta qanjirka thyroidka. Hadduu waqtiga noo saamaxana waxaan ka hadli doonaa insha Allah burooyinka ku dhaco qanjirka thyroidka, iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa qanjirka thyroidka isqariya, kaasoo iyadana muhiim ah. Waxaa laga yaabaa qofka inuu astaamihii thyroidka oo dhan uu wada leeyahay, laakiin mar walba isbaaro baaritaanka uu negative soo qorayo. Way jirtaa cillado saas ah, waana ka hadli doonaa insha Allah. Waa mahadsantihiin.